Assalaamu calaykum. Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Maanta waxaynu intaa ka qaadi doonaa amba ogaan doonaa sida loo sameeyey 3 hindhisaneed oo markaad aragtid qariib ku noqon doona. Hindhisaneedka koowaad waa hindhisaneed la fadhiisanayo hawada. Hindhisaneedka labaad waa hindhisaneed baaldi maran laga soo urgufayo ba laga soo gulgilayo kalluun. Hindhisaneedka saddexaad ahna kan ugu dambeeya waa hindhisaneed weel balaastiga shax lagu shubo la waayo kadibna shaxi meel uu maray. Hindhisaneedka koowaad waa hindhisaneed hawada la fadhiisanayo qariib ku noqonayso qof weyn hawada fadhiya. Hindhisaneedkan markaad doonaysid inaad sameysid waxaa lagaga baahan yahay 4 shuruudood. Shuruudda koowaad waa inaad soo qaadataa bil ballaaran oo culus. Birtaas hadda wax ka caawinaysa inaad hawada fadhiisatid. Dadka hindhisaneedka sameeya badanaa hoosooda waxay dhigaan hawsi waxaas si aan loo arag birtan. Shayga labaad waa bir aad ku fadhiisanaysid. Birtaas waxa shayga saddexaad waa bir dheer oo isku xiraysa tan aad ku fadhidid iyo tan halka hoose taala si ay isku dheeli tirmanto. Shayga ugu dambeeyana waa dhar waaweyn si aan lagaaga arag birahan aad isticmaalaysid. Hindhisaneedka labaad waa hindhisaneed baaldi maran uu ka soo baxayo ama laga soo urgufayo kalluun. Horta hindhisaneedkan waxaa sameeyay hindhisaneedyaha weyn ee Dynami. Wuxuu sameeyay maruu joogay qaaradan iska barakaysan ee Afrika. Xataa aan mar dambe muu sameyn marka kale uu sameeyay. Hindhisaneedkan horta dadka wuxuu tusayaa inuu maran yahay baaldigu. Kadibna iron gulgili waxa ka soo daadan kalluun aad iyo aad u tiro badan. Anaa ku fasiri doona. Total Sport baaldiga uu leeyahay maran yahay ma marna. Baaldiga wuxuu galiyay muraayadaas uu galiyay reflection bay sameyn dhinaca kale ku dhacay kadib qof marka la tuso waxa uu arkayaa inay baaldigu maran yahay laakiin muraayadda dabadeeda baa waxa ku raasaysan kalluunkan ka soo daadanaya si uu raahaysan. Baaldiga dabadiisa waxa ku leeyahay badh yar inta markuu qabto kalluunkii ka soo daadanayo. Hadaba waxa kala badan baaldiga iyo kalluunka dhulka yaala. Qorta ninkan wuxuu isticmaalay hal baaldi wax ka badan. Saan kuugu cadeeyo taas aan kuugu taakiid gareeyo ina ka yareemto bilkan taagan eeg. Daqiiqo kadib waa la waaya. Fiidiyogan waa la edit gareeyay. Hindhisaneedyaduna uu isticmaalay hal baaldi wax ka badan. Dadkan lama yaabana baaldiyadan uu isticmaalay waxay la yaaban yihiin kalluunkan meeshu ka soo baxayo. Hindhisaneedka saddexaad ahna kan ugu dambeeya waa hindhisaneed koob biyo inta lagu shubo biyihiiba aanay qubanayn totalis inta la foorariyo. Anaa ku sharaxaya horta hindhisaneedkan way iska easy adigoo waa samayn kartaa saaxiibadana waad kaga gashan kartaa. Hindhisaneedkan markaad doonaysid inaad sameysid lagaga baahan yahay 2 shuruudood. Shuruudda koowaad waa inaad horta dululisaa halkiisa dambe weelkan biyaha ku shubaysid amba koobka waa inaad halka dambe ka dululisaa. Tan labaad waa inaad soo qaadataa 2 shay kartoon oo afkaad ka saartid hadhow koobka iyo waraaq bahal yar cad oo eeg biyaha hadhow ku hadhaysa iyadu afka kaga dhigaysa koobka. Kadib markaad waraaqda ka saartid ku dhigaysa iyadu taasna waxa ka caawinaya daloolka halka dambe ku soo sameysay. Hadhow daloolka markuu hindhisaneedyadu ka qaado soo qubanayaan biyuhu. Marka daloolku waxaynu oran karnaa shaqo weyn buu hayaa waayo wuxuu ka qayb qaadanaya dheelitiranka. Hindhisaneedkana way iska easy isagu. Marka maanta fiidiyowgeena halkaas ayuu ku eegyahay. Waxaad kaga tagayaa sidaas iyo amaano.